Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro oo maalmihii u dambeysay safar ugu maqnaa dalka dibadiisa ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay. Gudoomiyaha oo meel fagaaraha kala hadlayay dadkii soo dhaweeyay ayaa dhaliilihii ugu badnaa u jeediyay xukuumadda haatan talada haysa ee uu garwadooyinka ka yahay Muuse Biixi Cabdi. Somaliland waa ka dhacay dhacdooyin yaab leh. Heesaa kuma wanaagsanin. laakiin berigii hore hees baa jiri jirtay la yiraahdo dhanaanaba wax yaab la igu soo dhacaya intii aan maqnaa dhacdooyinka dhacay way badnaayeen laakiin waxa ka soo qaadan doona in yaro fara ku tirisa waa ka mid ah hooyooyinkii iyo umulihii lagu laayay dhulkoodii ee iyagana la xidhxidhay hooyintooda iyo baroortooda qof walba reer Somaliland guday iyo dibadba uu gaaray codkooda waxa ka mid ah muwaadiniin reer Somaliland oo danyara oo maxkamadda ku xukuntay 700,000 lacag ku dhow midkiiba waxa ka mid ah saxaafadda oo sidii xoolaha waxa ka mid ah saxaafaddii madaxa banaaneed oo sida xoolaha loo haraasayo oo jeelka laga buuxinayo waxa ugu dambeeyay kuwii la dilay ee jirdilka loo geystay tafatirihii bulsho iyo Cabdi Maalig Coldoon oo burca laga soo muddo dhacdooyinka istaba socda inay midba mid ka yaab badan tahay shalayto xukuumadda Somaliland iyo labadii xisbi ee kulmiye wacid waxay soo saareen waxay ku sheegeen go'aan muhiimkaas waxaynu ku micnayn karnaayo kaliya inuu ahaa shahaadadii dhimashada ama death certificate hanaankii dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka Somaliland ilaahay ay nooga sahlo Somaliland way galaafan kartaa arintaas waxaanu u sheegaynaa talaabada ay qaadeen inaanay ahayn mid u danaynaysa hanaanka dimuqraadiyadda Somaliland iyo in doorashooyin dalka ka qabsoomaan ma aha talaabo u danaynaysa midnimada shacbiga iyo wadajirkooda hase yeeshee waa talaabo dildilaac ku keeni karta bulshada Somaliland waxaan kaloo sheegaynaa talaabada ay qaadeen inaanay sinaba uga suurtagal ahayn Somaliland in laba xisbi ay yiraahdaan Somaliland annaga sidaa doona ka yeelayna intay gaar u tashadaan fariintan u dirayo shacbiga reer Somaliland iyo beesha caalamku waxa weeye go'aanka magacay doonaan baa u bixiyaan inaanu deedafaynay oo aanan ogolayn oo aanu diidnay xisbiyahan laba waxa xisbiga wadani beesha caalamka iyo shacbiga u sheegaya sidoo horeba ugu sheegay inuu diyaar u yahay doorashooyin waqtigoodii ku qabsooma waxa kaloo aanu sheegaya beesha caalamka iyo shacbiga reer Somaliland inaanay sinaba u suurtagelaynin in keligii xisbi uu doorasho Somaliland ka qabsado waxaan leenahay labada xisbi iyo xukuumaddana taladii waa la ambateen annaguna waxaanu diyaar u nahay miiskii wada hadalka si aan awalba diyaar ugu ahayn talada halkeedii lagu soo celiyo haddii la doonayo doorashooyinku inay waqtigooda ku qabsoomaan walaalayaal waxa shacbiga reer Somaliland ugu baaqaya xukuumaddii aynu dooranay waynu aragnaa labadii xisbina waynu aragnaa inay ambadeenna waynu aragnaa Amsika Ahmed, Television ka GBC.